بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن سلامي سومالي محمد كلب يدي هذا نقص الله بتي ما أنت حدا ينوت هاي مش أنا ما قان تارك صدق يا موجود ساسا مالينا ما يتارك لباتن يوح ها تارك لباتن يكوا ما أنت مالينا ما في عنتي وفي عنها واكسن النبري واكسن مذنبري وإذن سلامي ماشي جوكتين بلا هذا كوا عما السدا تاك بعد وحن مانت وحير إنك هلا قصة عسنا قصة أيام كوكينايا قصة ير أيام ربعنا إذا تابسي أو السومرتي أنا قف كلا أنا سومرين أنا السومرتي 2018 كي هاد إن شاء الله هدو إلهي بينك هايو marka qisadaasaan rabaa inaan idinka dabageeyo wax yar dhigtaysiya ee suulkana hayga iloobina waad ku mahadsantihiin inaad maaragtay share garaysaan oo maaragtay subscribe share like wax walba waa dhankiina walaashiinaan nahay maxaad iga xasdaysaan maamo walaashiinaan nahay oo masaakiinna dhib ku dhacay iska ayadabaa lafteeda problem socdo iska problemkii oo lagu iyo gacmo loo taagay marka igu caawiya idinkana intaas igu caawiya walaashiinaan nahay keep going marka intaa ka bacdi intaas haddaan uga dhammaadataa waxaan rabaa 2018kii wax yar oo qiso ahoo maray oo qisadaasna maanan soo qaateen laakiin aan qiso ku soo qaadan doono oo hadda igu dhacday taasaan rabaa inaan idinka dabageeyo 2018kii horta accidentaan galay baabuur aan haysano halkaa baabuur noo ahaa naga jajabay baabuurkii markuu naga jajabay canshuuriskii lacagtana siiyeen awiil aan ka adeegan jiray kheyr allaha siiyo ayaan u tagay waxaan ku yidhi walaal kareereed ma haystay kareereeda dad haysata baabuur maad ila gadid markaasuu yidhi waxaan haystaa leysi maan leeyaho suuqa sabda oo la taga ayaan tagaa oo kaasaaba iga fiicana maad igeyst marka waan xanuunsanahay waa qofka markaan is aragna waa iskala macbilaadi karaa oo si fiican oo la hadli karaa siduu ii arkaba laakiin anigu waan xanuunsanahay runtii qof yaqaano xanuunkayga saas hoosaan iyo ogna male laakiin xanuun meeshii ugu dambeysay ayaa berigaas yahay ilaahay unba ma bishay kari xanuunkaas noocuu ahaa ilaahaygii mooti ayaan ku mahadiya muslim iyo gaalana kaasoo kaloota ilaahay ma soo mari aan ugu duceynaya waa dhibaatada aniga aan maray 8 sano iyo bar dhibaatada aan maray haddaan ka noolahay ilaahay ayaan gacmaha inaan u taaga oon salaatul shukri aan dukada ayaa ugu waajibta inaan hadlaba ma ahayn laakiin bani aadanka afkiisa waxaa aamusiyaa cara marka ciid laga buuxiyo allahu raxmada lagu yiraahdo markaasaad aamusaysaa inta kale waa soo taaganta waa hadlaysaa marka ilaahay baa isoo dhaafiyey waqti oo waxa waaye laga sheekeeyo waay taas waqti xun bay igu ahayd aad ay igu xumeed runtii waxaan ahaa dismoraal xun baan ahaa aad iyo aad baan u liitay xaaladayda aad bay u cuslayd alxamdulilaahi rabbilcaalamiin yacni waa iska socdaa wiilkaas kala socday ma ogi aniga iyo dhulka humaaga dhexdayna ku jiro humaag waa garan kartiin oo malayna soomaalina humaag aqaani male humaag wax madow ayaa dhexdayna haata ku jiro yacni wareerka xanuunka wax aan ahay iyo wax kale ma kala garan kara waa iska socdaa uma ogi oo heblaay hiidaan maqlaa heblaay iyo hiida iyo maxaad wadataa iyo waxyaalahaasaa maqlaa ma ogi howlo adduunka kale ayaan dhex joogaan dhihi kara oo xaaladayda aad bay u cuslayd alxamdulilaahi rabbilcaalamiin marka anigoo sidii ah wiilkii wuxuu yidhi suuqaan kuu kaxaynaya lacagtaad haysato soo qaado oo ogaanteeda laha aniga wiil fiican buu ahaa kheyr allaha siiyo haddaba aniga horta axsaanka uu ii sameeyey dameer lama noqdo waa ugu mahad celinaya laakiin maxaa ka dambeeyay wiilkii waa israacnay mid kale oo masiibo hadduu bani aadan qabo masiibo qaba oo halka af kale oo dusha af kale oo afkii ilaahay u bixinay oo 12 afood leh yaa oo hudhudkii la sheegi jiray ayaa saaxiibkiisoo dhexda dalaq naga yiri oo naga raac marka saas 4 qof aan ku nahay أبو هدهد أماشي نجرها جرق سام وسعنا وبوديني سوق عندنا سوق محل ساعة جرت ما كان ملا سجرت سوق يان تقني سوق ما كان تقني ويلك وسكفي عناي كودي هراء
hal gaari buu ila gurguriyey markii dambe waa yara dhaqaaqnay aniga ilaa qof iska meel aan u socday kalma indhaha haata waa yacni indhihii ay taagan anigoo idilba yacni waa cirkaan ku jiraa si kale kuma garatiin marka hudhudkii ayaa daf inuu siiyey wiilkii xoogaha iga yar dhaqaaqay la rag anna wax iska xanuunsan waa daba socdaa gaari baa loo tagaa waa iska hadaafaa waa iskala tagaa markaasaa muxuu sameeyey mataqaanaa hudhudkii wiilkii markay iga yara dhaqaaqeen oo xagga kaloota u maray dhegta wax ugu sheeguu yiri shuk buu ku yiri annaa intoo kalootaan taagana wiilkii waxaan arkay isla daqiiqadiiba daf la yiri oo bedelmay waaba bedelmay ninkii i waday ninkii ma aragtay 2 isbuuc ama 3 isbuuc waxay ahayd ba anfooleenka ugu jiray oon sugayba maba noqoninba wiilkii ninkii waaba isbedel oo gaariyan kula soo gadaa ilaahay waaba isbedelayba gaariga meesha waxaa loo soo galo horta gaariga ninka laysankiisa markaa kusoo galayso xoogahoo lacag baa isagaba lacag buu ku laysanka ku dhiibaa marka inuu xoogoo kaa qaato waa haq oo taas oo kaybaanba ku ah laakiin hudhudkii muxuu ugu dhigay wiilkii ugu diray wiilkii 12 waaba wiilkii dub kafuurkii baaba intaa la eg oo jubadkaa la eg dam waaba taagan yahay acuudu billaahi min ashaytaan rajiim yaa dha maxaa kugu dhacay waa iska daba socdaa markaan daalay oo suuqi warwareegi wax leela gadaayo ama waxaa la yiri qawda maqashiya habarta waxna ha u qabanin ha laga dhiga yaa waa socodkiina haata waa dhibayaa inaan tabar dhigay nafta isnacay yaa ku qaadaya ayakaasaan foolan ugu jiraa oo suga ilaa markoo may ka dhamaadaan marka wiil kale oo Soomaali min Soormiya meelahaas ka amaadeen oo maleena ayaa meesha amaadeen iyo gabadhii uu qabay ayaa isla socda gabadhu gaari u gadiray meesha isku amaanay wiilkii hadee gabadhiisii gaari uu gadaayay asagii baaba nin baabuur leeyahay oo baabuurta ku dhex jiray oo baabuurta kala yaqaanay daqiiqadii ay ka wada laysankiisii uu ku soo galay ma wuxuu ka sugayba male baabuurku rabay saa dhac ka siistay gabadhii gaaridii waa heleen ayaa ka 2 gaari ama 3 gaari meelahaas ay rabeen waa gateen marka waa carbuuntay aad 3 gaari buu carbuunto fiican mid iska cusub mid waaba cusubnaaba gabadhu u qaad marka anigi meesh kursi iskaga fariistay waxaan haayo lama arka anigoo idil xanuunka inuu iga batay ayaa indhaha haata kala ma furi karo anoo idil waa isna nacsana meeshii okshinkii yaa dhamaaday okshinkii markuu dhamaaday oo okshinkii la xiray okshinkii wiilkii gabadhii halkaa wiilkii gabadhii waa isna naag isqaba oo muslim ah oo diinta islaamka isku qaba laba aflihi gabadhii baa wiilha ka dhamaan laakiin wanta fiirsay ugu badbood say uga qabsatay bismillah say uga qabsatay wiilka bajaan uu ka yaryahay gabadhii unbuuba ku mashquulay waxa kugu dhacan ku yiri balaayo ku qaragtay nin rag oo naag hadlay barigaas ay ugu horeysay horta wallaahi billah nin rag waxa ku yiri isaaq fariisto waxa ku ma aragtay cabaayada ay qabtay ma taqaana cabaayad qaali tan ugu qaalisan ay qabtaa say u dhacsan ma aragtay ninka way ka wad ilaahay baan ku dhaartay ninka labada aniga yaqyaqsi ma tag ay ninka wuxuu sheegay ma tag waxaan sameyn garan laahay alla kan yaa ka akooda alla yaa ka agwada asagii ku daba feelsanahayo kii kalena hadii afku u dhigto asaa bedelay asagaasaan rabnaa haddana inuu na celiyaba asaan ku daba feelsana meel uma dhaqaaqi karo waayo ayakaas moogi meel kale ma aadi karo gabadhii iyo qabteen iyo wiilkii iswato isqabisaasaa laga sii nin naag ka hadlay horta barigaas ay ugu horeysay wallaahi billah ragga naagaha waa ka hadlaan waa yaab acuudu billahi min ashaytaan rajiim cabaayad naag ay wadato nin rag oo Soomaali oo ka hadlay weligay ma arkin cabaayad naag ay wadato waa markii ugu horeysay aniga yaab yaxyax waxaan dhahay ninka maxaa ka sii acuudu billahi maxaa ka qaldan ninka cabaayada gabadha ku mashquulay oo labada qof oo isqabta ku mashquulay oo hadda ki weetay hadda ninka ragga soo guursada naaga oo ay dhali karaan oo awow ay u noqon karaan ay guursadaan gabadha haday ninka ka hatay waxbana kama weyna waa nago iska barartay ma waxay ka weyn tahay ba male waaba isku daa ilaahay uu iska weynay raga daadooda la gartaa marka ilaahay amarkiis gabadhan buu saa ka dhigay maraduu ka siiftay say balaayo ku qaad
maradii gabadha ay xirneyd unbayba ninkii uga dhegtay aniga ma tag ka muxuu ahaaye alla hogayey kan intaan ka waan yaqyaqsooday yaqyaqsi ilaahay baan ku dhaartay marka raggii Soomaali horta saasaa u dambeysay ilaahay ha idin soo qabto allah idin soo celiyo dal aad soo qabataan iska dhaafi dadnimadii ragga Soomaali lahaayeen ayaa noocaas ay u dambeysay marka kaas hudhud intaasaa uga baxay asaga marka wiilkii qeer allah siiyo gaariga gabadhii u gatay 3 gaari ay gateen gaaridii ay gateen ayaa hal gaari lacagtii ay ku yaraatay markaasuu yiri gaarigan waa celinay labadan gaari aan qaadanayna iyo hal gaari wuxuu ahaa maqan ma xasuusta gawaarida horta intay ahaayeen wiilkii markuu gaarigii wuuna baayacay beecina asaga ka reebay markaa la yiri adiga ma qaadanaysaa baabuurkan waxaan u malaynaa 1000 miya ma ogey 1500 miya ahayd maqan lacagta aan watay 9000 miya ahayd maqan 8,000 bar miyaan watay maqan wax saasaan watay gaarigan 10,000 wax yar buu ahaa marka waxaa wiilkii isoo waday markii hore ayaan ku yiri anigu lacagtayda gaariga ma gaarayso gaar laan aan hayso gaarigu waan u baahanahay lacagtaydana ma gaarayse ma ii korinaysaa ana deen ma siinaysaa waan qaadanayaa gaariga hawa ku siinayaa goormaad siinaysaa war 3 bari bay uma qaadanaysaa iga bixi kunka gaariga korsaada iga bixi waayahay sidii wiilkii qeer allah siiyo horta ana axsaan baan u hayaa 2 jeerayba hadduu ii waji bedeshay iyo hadduu ii caayo iyo hadduu ii jaafiyey horta axsaan baan u hayaa oo hadduu ii kaxeeyey oo ilaahayna laqdabaalihii inuu lug ii dhigay sansaari ii dhigo ila dilaha ilaahay iga badbaadiyo surdabada wata ilaahay iga badbaadiyo gaari duur cidlo ku soo dhacay ilaahay ii soo sahlay horta alxamdulilaahi rabbil caalamiin sidii baan gaariga ku soo helay meesha markii laga kala tagay gaarigii wiilka lacagta u garan waayaan gaariga lacagtiisii aan ka helay sidaan ku helay wiilkana uu ii kordhay lacagtiisii dib ugu helay marka hudhudnimada Soomaalida horta waxay hudhud Soomaali raggeedii wuxuu noqday hudhuday u bateen wadankayna wuxuu faraha uga baxay oo u dagila yahay waa hudhudnimadaas naagihii cabaayadihii gabdhihii walaalihiina ay wateen ayaa idinka baxsan la ragga qaarkiisa ragga kulli ma waa hal oo kaas aan arko kaloote horta allah idin soo celiyo annaga Soomaali haddaan nahay rag gab ah naga dhashay Soomaali haddaan nahay rag aan gabdhahooda ka hadlin baa naga dhashay Soomaali haddaan nahay rag waxay gooyaan la yaqaan waxay galaan iyo waxay gooyaan iyo waxay gudaan la yaqaan naga dhashay waxaan hadda cabaayadaha naagaha ku soo noqday war maxaa idinka qaldan mati aniga ugu dhacday baa idinku dhacday idinkana yaa oo ma yaal idinka warqabin oo go'dan mad ku jirtiinba oo ma muuqiini bas aan noo muuqdo yaa maqanaha joogaatiin maxaa idinku dhacay waxaa igu dhacday arrintaas waxaan ku keenay oo arrintaas aan ku keenay maanta tu hadda i haysata maan dhaxdaasaan kalib soo geliyey oon ka hadlaayo inay ceerta haata dhib badan yihiin inay dhibaato badan ugu soo dhacday cumrigayga 9 sano oo ka mid ah oo wax yar ka dhiman in daawo liigu dhuftay ay iga qaadatay waxyaalahaasaan ka hadlay markaan ka hadlay ceertii ilmaha ii qaadanayeen aba qadhaf liigasi gaaladan cad af Soomaali ma yaqaanaan dad baa u tago u turjubaan oo yiri habarta saas ay idin leedahay ma yaqaanaan af Soomaali ayaga hudhudkaas oo kaloote ayaa u turjubaanay oo 12 aflaha 12 aflo ilaa ingiriis buu ku hadlaa waa gaalkaas cad anna af Soomaali aan ku hadlay hudhudkii inuu tagay buu yiri habarta saan ay leedahay waa kibirtay kaaliga jar ceerta yar oo qaadat aniga horta haddaan layga jarana haddaan layga jarin horta waxaas igama nixiyaan hudhudo haddaad u turjubaantana ceertaas liisina wax ka badan baaba iga maqan wadankaygii baaba lagu dagaalamayaa oo iga maqan oo faraha ka baxay meel cidlaan ba taagan markii horeba ceel baa labada gacmood qof la qabto hoosna bohol loo qoday oo dheer oona laga soo bixi karin oo saa loogu raariciyo kalootaanaha saasaan u lishay markii horeba haddana ceertaas aniga ma shaqaysanin markii horeba dawladda ay u caawinaysa waxaa kaloo diloobin waddanka aan joogo waddan freedom oo speech leh oo maaragta qofku uu hadli karo wuxuu maaragta goconayo uu ka hadli kara inaan joogo ha iloobin
ha iloobin taas waddankan waa freedom luuqadda afkayga aan ku hadlayo freedom aan u leeyahay codkayga inaan baxsado oon ku hadlo waxa aniga i dhibay aan ka hadla xaq baan u leeyahay ayakaa soo saaray sharcigoodu ku qoran yahay ani ma soo saarin hadday i dhibeen geedka baxay xididkiisa iyo qoloftiisa waa seem iyo mirta ka baxaysa asagaa iskale geedkaa iska wada leh aniga dhibaatadii u dhacday ayakaa igu dhuftay maba kala qaadayaba runtaan kuu sheegaya 8 sano 9 sano cumrigayga kamid ahaa aan waali iyo wareer ku dhamaystay oon baaba-ay oon dhulka ku dhacay dusmuraalnimo baaba ceeb saxariir dhibaataan ku dhamaystay ceer la gooyo ad adiga ka hadlaysaa xaqaygii baa maqan maadar fakar ma garat marka hudhudow waxaa la yiri ma taqaanaa anigu aan oga waxaas saasii galaa waxaa la yiri nin daarad muraayad ee ku jira dhagax tuur bilaabo ani horta daa waddankan waa waddankaygii labaad dhibaa igu gaaray meel walbaba dhib waddankaygana fictam baan ku ahay waa inaag boqortooyo ka dhashaanahay annahay boqortooyadii aan ka dhashay abta naaw meel lagu sheegay male magaceedii ayadaan laga soo gaaray magaceedan dhulkaa lagu sallaxay ma garatay marka taasba waa fictam weligayna madaxaa saasaan u raaricin jirin raariciska hadda dhibaatada igu dhacda hadday iigu soo horreyn lahayd way xanuunjin lahayd laakiin mar horeba dad kaloo soomaaliya ii soo geystay dhibaato kale iyo gocosho iyo ciil baaba qabayba marka imaba kululaynaysa runtaan kuu sheegayaa marka hudhudow aniga xaq waxaan u leeyahay inaan hadlo kan caddaanka iyo kan soomaaliga kale ma jecli kii dhib ii geysta xaq baan u leeyahay dhakhtarka hadduu dhib ii geysta xaq baan u leeyahay inaan ka hadlo ceerta hadday dhib ii geysata xaq baan u leeyahay inaan ka hadlo waxay rabaan ha gooyaana iskuulka sidaas oo kaleo xaq baan u leeyahay inaan ka hadlo cuburiska xaq baan u leeyahay inaan ka hadlo tanba cuburiskay ka mid tahay maxaad u hadashaa daa la yiri oo ceerta lagaaga waxay igu tiri inay soo wacday igu tiri ceerti waa kaa jarnay kiiskaada waa xiran yahay oo maxaad iiga xirteen adaa naga xeray tiri waa fahmay inay warka ay ku wada aniga afkayga ka bax oo goormaan ku iri aniga waa isa dhaga tiri sayida ay igu sariftay warka igu sariftay warkaadii aan u xirnay ma dhihaysee mogta waxay ii tiri adaa naga xeray tiri marka walaala aniga xoog baan leey still amnyaanka waxbana yay ka halaabin ilmahaygana waaba qaar waaba koreenba waa shaqaysanaa haddaa lii ogolaaday inaan shaqaysto oo cuburiska iyo daba orodka iyo fadeexada ay ila daba taagan yihiin ay iga daayaan oo freedom oo dadka sida dadka maraykanka ay ku shaqaystaan iyo daawaday ayaka ay igu duraan ay iga saaraan oo xoogaygii iyo sidaydii ay ii soo noqoto caafimaadkayga aan helo waa shaqaysana haddaa caafimaad darradii ayaka ay igu ridaan ay ceertana iga goostaanna dowladda maraykan baa wax ka qabanaysa ilmahan dowladda maraykan bay hoos joogaan haddaaba qof xanuunsan oo shaqay waay an ah ceerta waa loo soo daynaya ilmaha iskuul ay aadaan taasna yay ka halaabin haddaan shaqaysanana umaba baahnin wayna ku mahadsan yihiin siday noo soo qabteen oy wax noo soo siiyeen haddaan caafimaad qabo oo shaqo inaan helo aan arkay inaan shaqaysan karo oo xanuunka iyo barbaleenka ilaahay iga saaro oon shaqaysta markii hore barbaleen xaggaa la iga amaaday maaha xag bani-aadan gacantiisa iga amaaday anaa ku sheegaya naag baa iga waaday dhakhtariin oo 3 iyo 4 ahna waa igu xadgudbeen ma garatay xadgudubyaa igu dhacay waan barbaleemay bani-aadan baan nahay maskaxda bani-aadanka waa wax yar waa lii damage garay waan barbaleemay meelaan u socday meel kalean kale ka sii waay ma garatay taasaa keentay inaan shaqaysa waaye ma ogi naag shaqaysa waayse oo leyse mihi naag shaqaysa waayse oo leyse mihi laakiin soomaali baa tahay garasho haddaad leedahay habar ceer qaadanayso horta kamaad daba tagteen ma garatay ceer haddaa liiga gooyna cuntaan aan soo shaqaysti ma aha hadalka soo maaha freedom of speech aan leh ama america citizen okay waxaan anigu ku gardaranahay dowladda igula xisaabtamaysa
qof ma dilin weligayna dowladda maraykan qalad kama geysanin laakiin waa liigu xadgudbay xadgudubkayga yah waa ka hadlayaa xadgudubkayga waa ka hadlayaa ama waxaa liiga qabta ama aan liiga qabanin laakiin xaq waxaan leeyahay inaan ka hadlo adigii ma aamusiini kartid xaqna uma lihid inaad ii aamusiisa waa ijaajuustay ama okay hadda waa shaqaysahaya hadday iga fariisato oon wadi waayo oon dhaqaaqi waayo yaa liisoo daynaya danwari ama ha dhahda adaa naga goy tiri oo warkaan aniga iga soo baxa u tafsiir ama waxaad rabta ka samey taas jeebkaada waayo aday jeebkaaday ku jirtaa markii horena anin waxaan kuu sheegayaa inaan markii horena victim ahay haddana aan victim ahay waddan dowlad lehna anoo joogo aan victim ahay victimka dhibaatada i gaartana inaan ka hadla aan diyaar u ahay adiga aad i cuburi karin oo afka iga sharootay karin dowladdaanan ku xadgudbin dad kalaanan ku xadgudbin shacab kalaanan ku xadgudbin dhibaataa lii geystay laakiin daaradda aad ku jirta muraayad waaye dhagax tuurka daa taasaan ku leehay dhagax tuurka dhaaf dabaqaada muraayad waaye taasaan ku leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hadalkayga ula jeeduu leeyahay